waaweyn oo gadle oo fuyuuskooda iyo aragtidooda iyo doodooda iyo caanimadoodiba ay fadhiistay dumarkooda aan nolol qoysba gacanta ku hayna nolol qoysba aan gaarin nolol qoys ka faaloonaya wuxuu nolol qoys ka yaqaana sidoo qof faaloon kara mesela qoysba noqday qofkan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal soo dhawaada meel kasta joogtaan war waa odayga cabdiraxmaan baryahan baa halkan iyo Hargeysa iyo ceelka Hargeysa ayaan damaashaadaynaa waa caasimadii oo nabdoon dalka doorasho galaya hor socod dhul wax laga qabtay magaalo iftiintay oo maayir yeelatay aad iyo aad baan salaamay waniyo hadii la yimay maayirada reer baa waxaan leeyahay lacag ururiya maayirka Hargeysa inuu soo gadano tolo insha laga siinay Hargeysa barga gadaysa intaas waa Hargeysa iyo hawlaheedo oo sababta waxa weey markaan imi waxaad moodayaan joogo caalamka le dal la aqoonsan yahay ninkaas runtii magaalada wax badan ka qabtay reerkiisa waxa leeyahay nasiib baa leedihiin xijista waxa weeye maayirkiina ilaashada halkaana magaalada berbera Soomaaliya aad iyo aad u qurux badan intaas waa yahayga socdaal iyo waxyaabaha la kulmay waxaan doonay maanta ka hadlo mowduuc yar oo kooban aan badnayn nimayo muddooyinka u dambeeyay waxay nagu soo batay oo dhageheena iyo muraayadaheena iyo TV-geena ku batay doodaha qoyska rag iyo dumar sar fadhiya hablayeena meel la isugu xareynayo oo aan iyagu guriyaba lahayn oo haddana la dad guri yeelato anigu waxaan ka doonayaa habluhu waa sidan nin lacag lay rabaan nin jiim galay rabaan anigu ma nin noocan rabaa anigu ma naag noocan doonayaa ma dumarku waa sidan iyo rag waa gabadha dashanaya tan gaadho lama guursan karo hagbad galo oo afartii hablood nin qurux badan guursada xalamid waxa la markii mushkiladda markay haysta maxay tahay aniga waxa ii muuqata burbur iyo nac qoyska lagu sameeyo qoyska jira iyo qoyska soo socda arrintaana waxa horseed ka laba group kan doodaha qabanaya TV-yadan gebigooda aragti bulshada waxay u baahan intaas waxay u baahan dood loo qabanayo caafimaad u baahan tahay waxbarasho u baahan tahay horumar u baahan tahay koow TV-yada doodaha noocan qabanaya ayaa waxay qayb ka yihiin aan aaminsanahay inay qayb ka yihiin burburka qoyska laftarkiisa lambartu waxa weey dadka raggan waaweyn gaar kale ee culimada diinka ee magacyada ku doonay ee gebigiisu baa TV soo taago waxaan gabadhay baa ka hadlay wadada islaamay nahay dad noolaaba inay dastuurka qoyskana ilaahay baa inoo deji dumarku waa makas markii hore waa makas mas'uuliyadooduna ilaahay baa nasaaray maamuus iyo ixtiraam muday ninkaytu meel soo fadhiistay la doodaya ee soo fadhiisanaya ee waad khaldan tahay ma qaldanid adu waxaan ka baatay waxa leenahay ragga waaweyn gaarka shaarbaale waxa leenahay ragga waaweyn muraadaha soo fadhiya habeen walba habla la tirsanaya waxa leenahay ma macaasho ruuxii habla ceeb ugu miciina waxa jira mashruuc aan la gelin lagana maansoon dibnaha maroorsama ninkii mowqif ka gala maasha abla habluhu waa mahurtadeeni waa miro inoo wada dhaxon cid ka maarmay marwada ku dhaxdiyo hooyada laga mas'aalay maxaa ceebta mooska taal magana ku geey ninka laga wada dhashanaad jirtay lama guursan karo cayn ka bay noqotaa miyaan gurigiisa habla la dhashay oo walaalo la ah iyo kuwa waxa ku dheehelaa iyo kuwa qaraba la joogin ninka habeen walba TV soo fadhiisto oo doodo dumar ka dhigto doonaya miyaan guri dumar joogaan ku carabay almuhi waxay tahay war habluhu ay iyo ceeb ma geeyaan marka hore in meel la soo fadhiisto oo lala doodo oo lala gorgortamo waxa weey maanta wala nolosha ay kan iyo ay ka baa noqoto maaha ilaahay wuxuu ka dhigay nin markuu ilaahay ku yiri khalaqaka fasawaaka fa'adalak fi ayi suratin ma shaa rakaba ayada ilaahay wuxuu ka dhigay rijaal hoggaan baa lagu dhibay dunida lagu haliyay dunida dhamada lagu haliyay waxay ka dhigan tahay yaa taa maanta iyo rafiyo saaraha hablaha ay yara xagto aka soo fadhiisto habluhu ay ka noqdaan sidan iyo sidan weey hal mid waxaan ugu baaqayaa bulshada hal midna waxaan ugu baaqayaa xukuumadda hal midna waxaan ugu baaqayaa caadaystayaasha dooda haweenka hal mid waxaan ugu baaqayaa caadaystayaasha dooda haweenka waxaan leeyahay warhankiina iyo hadalkiina iyo hadafkiina inta ha dhaaf oo magac ilmaada rayalaha ku raadinina dood iyo girifta iyo muranka haweenka ee gabadhada gaabana ugu soo fadhidaan midna TV-yadan leeyahay waxaan leeyahay ilmaada rayaalow doodo badan iyo falkada banaan oo nolosha ayaa jira ilmaada rayal kuwa ka dooda leerka dooda caafimaadka ka dooda biyaha ka dooda horumarka ka dooda xukuumadda iyo dawladda iyo deegaanka iyo xisbiyada ka dooda laakiin qoyska iyo nolosha wixii burburinaya ka doodina midna xukuumadda la waxa waajib ay saaran war arrimaha noocaas waxay lagu keenayaan burbur qoys waxay lagu keenayaan isku dhac bulsho qof midaan reerba ka soo burburin baa burbur reer ka hadlaya yaa horta ka soo burbur reer samaysan marka hore hadaa reerba waligaa waro gogol baad ka soo toosay gurigooda biliska ku cunto sidee ugu doodi kartaa qoys iyo arrimaha family war hablaana shalmada la sii daay dastuurkeena diinteena dastuur qoys bay noo samaysan kaasayna dhaqaya marka waxa la saaxiibayaal meel kasta joogtaa muuqaalka si share gareeya
kuwa hablaha iska laalaadiya gogoradaha ku dhigana ku sheergareeya ku taagereeya aragtiyada waxa kula tahay muuqaalka halka hoose noogu reeb isma dhaafna. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.